سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنالكن كسلامية حلبانada sharafta leh ee labada aqal marwooyin iyo mudanayaal hogaamiyaasha labada aqal marti sharafka baada saxaafada ciidamada amniga iyo marti sharafka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed adduunka dacaladeeda joogta waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib walaalayaal maanta waxaan sharafiya inaan soo hor istaago baarlamaanka Soomaaliyeed oo labada aqal ka kooban. waxaa sharafiya maanta inaan idin sheego Dr. Mukhtaar Maxamed Sayid waa kuma. Dr. Mukhtaar Maxamed Sayid waa muwaadin Soomaaliyeed oo dhakhtar ku takhasusay caafimaadka caamka iyo specialist-na ku haysta carruurta iyo cudurrada tropicalka ku dhacay waddankeena iyo waddamada tropicalka ku dhaca. waxaan also mutakhasis ku ahay public health. 20kii sano ee inoo dambeysay caafimaadka ayaan ku dhex jiray qaybihiisa kala duwan. waxaa halkan ii keenay ma aha inaan maanta Soomaaliya u soo doonto maal ama aad xoolo ka samaysid. anigu waxaan ahay nin doctora oo mutakhasisa oo isku filan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala igu ikraameeyay aniga iyo carruurtaydu inaan wax xalaala cunno oo dhididkayga aan maalo. waxaan ka adkaysan waayey dalkeenna dhowr iyo 30kii sano ee burburka jiray meesha uu marayo ayaan ka adkaysan kari waayey. sababtaa awgeed laga soo bilaabo carta ilaa yoomina haada dalkan inuu qow ku sii dhacayo waad wala ogtihiin. aniga oo ka intilaaqaya qowlullaahi tacaala qisatii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay oo meligii masar haystay uu ku yidhi in uutuunii bihi astakhlisuhu linafsii innaka alyawma ladayna matiinun amiin. markaasuu nabiyullaahi yuusuf gacanta taaga wuxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim. waxaa sababtaas darteed inaan ammaanada qaadi karo oon xuquuqda dalka iyo diinta iyo dadku igu leeyihiin aan ogahay ammaanada culayskeeda inaan ogahay arrintaas ayaa keentay iguna kaliftay maanta inaan isu soo qaawiyo xilkaas. aan aaminsanahay inaan u ahay ehel kufna u ahay oon leehay aqoon maadiya iyo aqoon islaamiya aqoon diiniya oon dadka ilaahay uga cabsado cirdigooda iyo maalkooda iyo xoolahooda inaan ilaaliyo. sidaa darteed walaalayaal xildhibaanada sharafta leh labada aqal waxaan maanta idin weydiisanayaa codkiinna idinka oo ammaano adag qaaday. codkaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu idinkula xisaabtamaya. aniga meesha waxaan u imid qabiilla kuma tiirsani wax kalena kuma socdo ummadda muslimiinta Soomaalida oo dhan ayaan ka sugayaa codkaasna waa wax ilaahay subxaanahu wa ta'aala mas'uul idinka dhigay maanta gacantiinnu ku jira bacdallaahi. waxaan u dhaadhacayaa waddankani midnimo u baahan yahay. waxyaalaha haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddii na doorataan oo ilaahay nagu ikraamo waxaan ka shaqaynayaa oo ballana ummadda Soomaaliyeed inaan mideeyo oo sharafteedii aan soo celiyo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala midnimada Soomaalidu waa muqaddas fil kitaabi was-sunna. nabiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi wa'tasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafarraquu. nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay ina allaha yardaa lakum 3 wayasqat lakum 3. ilaahay saddex buu idin amrayaa. saddexdiina amrayo waxaa weeyaan in aad ilaahay keliya caabudaan walaa tushrikuu bi shay'in in aad wa'tasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafarraquu. mid inaynu noqonno hal shacab oo isku tiirsano ilaahay ka cabsado xuduudooda iyo xoolahooda maalaynu noqonno. takale nabigu calayhi ilaahay wuxuuna leeyahay xadiidka nabigu inoo sheegayaa in aynu qofkii ilaahay noogu dhiibo xilka aynu u naseexayno naseexa dhaba oo inaan lugaha qabanin oo inaan dabrin oo qabiil iyo xisbi iyo wax kale aynaan kula dagaalamin. walaalayaal waxaan kale oon anigu haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilkan igu guuleeyo aan samaynhayaa dowlad wanaag good governments oo ruleska shareecadu ay saraynayso una madaxweynaha iyo dadku ayna saraynaynin dadka xoogga leh ayna saraynaynin shareecada oo loo siman yahay xukunka oo loo siman yahay madaxweynaha ilaa ka dhuka xaaqaya inay qaban karto. dad muslimiin aynu nahay hufnaan
baan la imanaynaa waxa inaan kala saarno separation of power dhibaatada Soomaaliya haysata maanta waxa kamida inayna madaxdii kala garanaynin job description kooda inay garanaynin oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iska lalmadaan goolihii shacabka iyo goolihii dhexe aan warkooda la dhageysanaynin afduub lagu samaynayo shacabka iyo dawladda taas ayaan ka soo horjeedaa laanta fulinta legislative executive wax loo yaqaano oo garsoorka inaan hormarinayno inaan dhibaatada ummaddeena haysata waxa kamid ah adeegii garsoorka inuu daaqada ka baxay oo shelf iska yaa wax meel iska taagan oo lagu dhaqmaynin dhibaatada maanta dalkan uu ka dhaqaaqi leeyahay taas kamida nasiib darrada in haysata ayay kamid tahay arrintaas oo dhan waxaan samaynaynaa constitution code-ka constitution-ka inaan samayno sharciguna uu dalka xukumo ashkhaas inay dadka xukumaan ma aha amniga ummad aan cadaalad aan lahayn oon amni la'aanta waxaa keena walaalayaal cadaalad la'aanta diin xumida qabyaaladda iyo xoolaha muslimiinta la dhacayo shicibka la afduubayo ayaa amni la'aanta keenay amniga ummad aan amni lahayn saafanti male xorriyadna male waxaan ka shaqaynayaa inaan amniga tayo u yeelo oon ciidamada dhammaan intay ka kooban yihiin tababar sax loo sameeyo cadaalad lagu qoro gobolladoo dhan laga soo qoro qabiil iyo aan loo fiirin saaxiibtinimo cadaaladaas ay ku dhaqato ninkii xaq u leh in la dalacsiiyo inaan qabiil iyo qoys iyo saaxiibtinimo iyo rishwo la isku dalacsiinin baan keenaynaa waxaan kaloon ka shaqaynayaa qaybaha amniga inayna siyaasadda iyo siyaasiyiinta ku milmin iyo qabiilka ay dalka iyo diinta iyo dadka u adeegaan baan ka shaqaynayaa waxaan ka shaqaynayaa ciidamada dhammaantood inaan daryeelno oo kii soo dhaawacmay meeshii lagu daweyn lahaa aan samayno isbitaalladii kii shahaado qaatay carruurtiisu iyo aytaamtu ka tegay inay dawladdu kafaalo qaado in mushaarkooda loo kordhiyo askartan kabaha leh gaajaysanay darbida ku dhacaysa inaan joojino askarteenna askar wax baratay laga dhigo kulliyoodii tababara la furo ilaahay dartii looga cabsado taas markay timaado oo amnigeenna aan inagu gacanta ku dhigno oo inaan dad shisheeyaa oo madaxweynaheennii iyo ra'iisul wasaaraheennii rag shisheeyaa ilaalinayaan inayn saabantigeennu dhaawacan yahay waad ogtihiin oo dad aynaan ahayn waddan xor ah oo kaamil ah waddan xora waynu nahay laakiin waddan siyaasadiisa iyo xorriyaddiisa u horbannaan ma nihin arrintaa awgeed walaalayaal waxaasoo dhan cadliga iyo istiqraarka iyo walaalnimada iyo midnimada ayaa keenta dhaqaalaha waxaan ballan qaadayaa haddaad doorataan doolarkan lagu dileeyo Soomaaliya inaan joojinayo shilinkii Soomaaliya aan daabacayno 3 bilood oo ugu horeysa xilkayga oo dadka masaakiinta ee sicir bararka lagu riday doolarka lagu dileeyo inaan joojiyo lacagtii Soomaaliya inaan birin garayno inaan kaabayaasha dhaqaalaha dhiso oo cadli iyo hufnaan lagu dhiso dhammaan warshadaheennii la biliqaystay inaan soo celiyo warshadii batroolka tii baastada tii dharka tii kalluunka inaan kaabayaasha dhaqaalaha kalluunka kaliya inagu filan xoolaheenna ilaan tayayno natural resources keena ilaahayna siiyey inaan la soo baxno dabiiciga gaaska iyo batroolka dawladaha kale kaysanayaan fil mustaqbal inaan human resources dhiso Soomaaliya oo wax taqaano oo bala soo bixi karta khayraadkooda dad u daba fadhiin arrimaha bulshada inaan dhisno dawlad dhexe iyo dawlad hoose oo ka shaqaysa ummadda siisa biyo nadiifa koronto isbitaalada ay gabdhaha Soomaalidu ku umili lahayn gabadh dambe oo Soomaaliyeed ilmaheeda inay isku go'in oo isbitaalada adduunka ka habista aan dhiso jaamacado aan dhisno isbitkuulla laga bilaabo nasriga ilaa jaamacadda aan samayno shariicada Nabi Maxamed waxaasoo dhan lagu tabaqo inaan kaabayaasha dhaqaalaha dhalinyarada waddankeena 57% waa dhalinyarada aan shaqo abuur u samayno inaan soo celino dalxiiskii iyo dadkii foreign investment Soomaaliya dekadaheena iyo airportkeena inaan dhisno xuduudeena inaan dhaqaalaha iyo laga soo ururiyo in la sameeyo Somali National ID card oo zaka 7 number oo qof kasta Soomaaliya ku bixinayo zakadiisa inaan ummadda Soomaaliyeed sharafteed iyo ciisadeedii soo celino bulshadu waa laf dhabarka laga ilaahay wuxuu yiri wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu ilaahay wuxuu yiri bulshada waja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum qabiil ka fiican ma jiro Soomaaliya hadaan ilaahay gacanta ii geliyo waxa ballana
in lagu qiimeynayo qofka maxaa taqaanaa ee reer hebel baa tahay iyo waxaasaa tahay lagu qiimeyn doonin arrimaha ammaanada ee bulshada in la hormariyo shaqo abuur loo sameeyo caafimaadkii iyo biyihii iyo korontadii loo wafiro dhulkeenna wasakhdu daadsan yahay la dhaqo badaheenna aan hagaajisanno ammaanada intaana gaarin arrimaha dibadda dalkeenna waxaa ka maqan arrimaha dibadda Somali saafantigu waa muqaddas dawlad ajnabi ah ama cid aan kala gorgortoomayno ma jirto markaynu inagu amnigeenna gacanta ku dhigno dhaqaalaheenna gacanta ku dhigno oo baarlamaankeenna sharciga inay fuliyaan loo ogolaado oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu nin walba shaqadiisa qaato oo legislative condition ay qaataan markaasaynu dad iska celin kara shisheeyaha soo faragelinaya amnigeenna iyo istiqraarkeenna aynu samayn karnaa Somali saafanti waa red line cid kasta ay ku tahay amniga daakhiliga iyo amniga khaarijiga ilaahi subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay وأنزلنا الحديث في بأس شديد ومنافع للناس تكنولوجي دلك الدفاع أو هبك حسارك إنك صار إنك قاضو إن آيات القرآن كأمنك داخلي أمنك خارجي لقو دفاعه اقتصادي إن لقو دفاعه ودقاله إن لبوبة لقو دفاعه إن أمدا دلك كقادنو وحاكلون إذن شيئا أمانة ذا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت ولا لدى إذا حل ما نذا الله وضع قوله وحائد سارا أمانة أن هذا كهر لأرق إلهي سبحانه وتعالى وحيد كل حسابنا يا يوم القيامة كتاب القرآن كانت كل دارتين إلهي بعض دارتين إن إلهي دين تيسا يا النبي يا ذاتك الصومالية دي دول النبي ذات دارتين ما إذا نقدر نن مرشحة ما إذا نقدر ولا ليال وحان ذي الله إلهي كعب صدى إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أمانة إن وحاكم ذا إنكو أركاه قف أن كفوا أهين وضن كينا ذو بعد الله الصوماليا وحي كجرتا ما أنت بعد الله إلا وضع قوله اللي ما نذا شرفت له إلا وضع قوله مروين كي مدن يوشا وعند الله إلهي كعب صدى ولا ليال إن أرنت لوضع قاعدة للي وددتشنا يا إن إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri qofka mas'uulkii waa inuu yaqaanaa xuquuqda shicibka ka saaran iyo xuquuqda lagu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ma min raa'in yastar'ihi Allahu ar-ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa yakhin al-ra'iya lan yadkhul al-janna nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ma jiro nin mas'uuliyadiisu intay doonto baa leekaatee oo dad muslimiina xukumayo dadkii khiyaanaya jannada ma urinayo mana gelayo khiyaanadaas waxa kamida inaan maanta doorataan ninaan dalka ehel u ahayn anigu dalka dambi diinta iyo dalka iyo damiirka midna dambi kama gelin Soomaali muwaadin oo dalkiisa u dagaalamaya yaanahay waxaan rabaa inaan ku soo koobo mushkilada caamka ee haysata waa amniga waxaan ku xalinayaa anigu nimanka dagaalka wada inaan siyaasi u furno siyaaso lagu nabadgeliyo oo nabadgeliyo u furno nabadgelyadaasi iyo inaan u furno haday diidaan qasab iyo sankadulle ciidanka Soomaaliyeed intii la tababaro inaan ku muqiinino wadaninimada iyo midnimada Soomaaliyeed cid kasto ka soo horjeeda marka walaalayaal Soomaali waa wiilka dhimanaya ee duurka ku jira iyo kan la qarxinayo labaduba waa Soomaali muslimiina dhiiga inaan badbaadiyaan diyaar u ahay wadankeenu soo hore ugu socdo wadamada shisheeyaha inaga dhax faa'iideysanaya ee kulba mid la shiraya ee hubka u geynaya kuwa duurka ku jira kuwan kalena kala qaadaya inaan albaabada soo xidhan ballan qaadaya ilaahay dartii madaxweyne waxa loo baahan yahay aan ilaahay mooyana cid kale ka haybaysanayna sharciga iyo dastuurkuna uu qabanayo oon ahayn nin dictatoriya oo barlamaanka waxa kale oo ballan qaadaya inaan la shaqeynayno dawlad goboleedka wadankani waa federalism federaalku wuxuu u baahan yahay xuquuq gobol kasta leeyahay in la siiyo lala shaqeeyo nimanka gobolada xukuma inaynu madaxweynuhu shaqadiisa ku ekaado ra'iisul wasaaruhu shaqadiisa ku ekaado la kala saaro nimanka goboleedyada xuquuqdooda iyo xuquuqda federaaliga ee national servant la kala saaro waxaan ballan qaadayaa inaan si barlamaanka la shaqeyn doono barlamaankana waxa waajiba ilaahay mas'uuliyadu saaray ee sharci dejinta iyo sharciga kor u qaadidiisa inay ka shaqeeyaan inay ilaahay ka cabsadaan oo ina jeeb wax yar oo dhanaana oo shilimo la bixinayo baqsin daraahima diinta ilaahay iyo dalka iyo diinteeda aan ku gadanin ilaahay ka cabsado walaalayaal maanta waa adduunyo barina waa qabri
ninka murashaxa hadduuna ilaahay aqoonin oo dalka aqoonin oo diinta gadanayo qabriga kuu raaci mahayo waxaan idiin sheegayaa soomaaliyay inna cadaab allaahi la shadiid ilaahay aan ka cabsanno dalkeenna faqri inama yaalee waxaa ina haysta dhibaato cudur aan gallay oon ilaahay ka gallay dalka iyo diinta iyo dadka aan ka gallay hani baynu nahay dadkaynu quudin jirnoon dahabka sekada ugu geen jirnaan maanta dawarsanayna oo dalkeenna duminayso rag murashaxiinoo soomaaliya ay daba fadhiyaan oo lacag u soo daldalaya dalkeenna si loo dumiyo waxaan idiin sheegayaa walaalayaal ku soo koobayaa hadalkayga ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaano ayuu xildhibaanada saaray maanta ummadda soomaaliyeed berri si aynan u shallaytoonin oo aydan u dhahin yaa laytani ninkan maana dooranin inaad maanta doorataan nin kuf u ah ehelka ilaahayna yowmalqiyaamaha kitaabka qur-aankaad gacanta saarteen kitaabka aynu ka dayno beenta kitaabku baybol beena maha waa waxyillaah wa kalaamullaah soomaaliyey ilaahay waa markhaati ka ahow ilaahayow ummadda soomaaliyeeda muslimka oo markhaati ka ahow inaan xaqii idin sheegay oon u taagnahay inaan dalka iyo diinta iyo dadka badbaadiyo mas-uuliyadda idinka ina saaran tahay xildhibaanada sharafta low waxaan idinka codsanayaa codkiina inaad isiisaan ood igu qiimaysaan cilmigayga maadiga cilmigayga diiniga kartidayda iyo aqoonyahan 5 luqaan ku hadlaa 6 qaaradood qaaradaana tegin ma jirto walaalayaal ilaahay aynu ka cabsanno diinta ilaahay aynu badbaadinno diinteenna dalkeenna daroogada iyo khamrida Itoobiya iyo ku soo gurayaan dalkeenna aynu joojinno waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal waqtigu waa iga dhamaaday maanta idinkay mas-uuliyaddiina saaran tahay ha gadanina diinta iyo dalka shilimo yar iyo qabiil iyo qof aad leedahay xilbu ku siinayaa diinta walaalayaal ha u gadanina إلهي وحي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا وهذا شيء intaas iyo waxaan ku gabagabeynaya hadaan wax kala sheegay waa aniga iyo naftaydu ka yimid wax saacadaan sheegana waa min Allah wa min rasuulihi wa inna nabiga hada wa sallu wa sallimu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilaahu markhatika ahow xildhibaanada muslimiinta oo dalka iyo diinta difaaca ilaahay aan ka cabsanno hani baynu nahay faqriga aan ka baxno qabyaalad iyo qurunka aan dayno madaxweyne Allah ka cabsado oo nabi maxamed rumaysan oo diinta ku xukumayaan dooranno wa hada wa sallu wa sallimu على رسول الله اللهم احفظ الصومال وشعبها وأهلها ودينها يا رب العالمين اللهم احفظ هذه الأمة المباركة المسلمة يا رب العالمين اللهم اعطي أمر رشدنا رجل يخاف الله ويحترم الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.